golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa guddi u saaray inuu baaris ku sameeyo nuuca xiriir ee ka dhaxeeyo eedeysane Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab iyo falkii uu ku weeraray deegaanka Raaskambooni oo ay ka dhalan doonto isla xisaabtan iyo ciqaab. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta deegaanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa ka warbixiyay qodobada ee golaha wasiirada ay soo saareen. sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee magacaabista agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha in uu noqdo Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. ugu dambeyntii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulankooda toddobaadlaha ah ku ansixiyay heshiis u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Uganda oo ku saabsan ciidamada Uganda ee ka howlgalo Soomaaliya. shirkaan uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo ku saabsan shirweynaha daraasaadka Soomaaliya, amniga, dhaqaalaha iyo dhameystirka dastuurka. golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisa caadiga ahaa. arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxaa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose ciidamo uu soo abaabulay eedeysane Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS. haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyay weerarkaas qayru mas'uulnimada ah eedeysane Axmed Madoobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin. waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ADMIS goobaha ay baneeyeen isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerar ah ee uga yimaado khawaarijta. markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga hor keenay. marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun, si aad iyo aad ay u cambaareeyeen. waxaana xigi doona insha Allah tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan. waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysane Axmed Madoobe weerarkaas, si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro. goobtaasi sida la ogyahay 270 kilomitir wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray. arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedeysanahaas iyo khawaarijta ay xiriir gaar ah ka dhaxeeyaan. sidaas daraadeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas, warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena muxuu ahaa nuuca xiriir iyo sida ay ku suurto gashay arrintaas inay dhacdo.